soddonkii Janawari 1984 ayaa mar qura shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Boorama waxa ay ka warheleen diyaaradaha dagaalka xabashida oo duqeyn xoogan ka geysanaya qayb ka mid ah magaalada Boorama iyadoo xilligaasi warbaahinta Itoobiya laga sii daayay warar ku saabsan qaabka ay duqeyntaasi ay u dhaceysay. goobo cayiman ay diyaaradaha dagaalka ee xabashidu ay bartilmaameedsadeen waxaa ka mid ahaa guryaha shacabka, iskuulada, dugsiyada quraanka kariimka iyo waliba goobo ganacsi. khasaaraha ugu badanna waxa uu gaaray dugsiyadii lagu baranayay quraanka kariimka. dadkii ku geeriyooday duqeyntii xabashidu waxa ay gaaraysay ku dhawaada 50 ruux, balse arinta xanuunka badan ayaa waxay ahayd ardaydii lagu duqeeyay mid ka mid ah dugsiyadii quraanka kariimka lagu baran jiray. waxaana jirtay in hal meel ay ku geeriyoodeen 34 arday oo da'dooda u dhaxaysay 6 jir ilaa 14 jir. waxaana ku dhaawacmay 42 arday waliba 6 macallin, iyadoo markii dambe 2 macallin ay dhaawac ay u geeriyoodeen. diyaaradihii xabashida ayaa waxa ay sidoo kale ay duqeyn ay u geysteen xarunta hooyada iyo dhalaanka ee Boorama, waxaana halkaasi ay ku dileen 4 hooyo oo mid ka mid ah ay xaamilo ay ahayd. maalin kadib waxaa booqday magaalada Boorama wasiirka gaashaandhigga dalka Soomaaliya Sareeye Guud Maxamed Cali Samatara iyo wafdi uu hogaaminayay, isagoona waxgaradka Boorama kula hadlay gudaha magaalada ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa. danahooda raacanayay ciidana aanan ku gardaroonin, caruur yaryar oo ardaa oo baranayay ama qaarkood waxaa laga yaabaa darsiga ay qaadanayeen markaa inuu ka mid ahaa duruus diiniya. dad shacab caadi u nool, noloshiisa caadiya ku jiro, magaaladiisi ku nool, sidaa foosha xun loo duqeynta oo aad u xooganayd ayaa waxa ay sababtay in carruurta qaar la waayay, waxaana markii dambe la baahiyey sawiradooda iyo magacyadooda. Itoobiyadaasi sidaasi u laysay carruurteena iyo waliba hooyooyinkeena, maanta dad ayaa waxay leeyihiin waa walaalaheena.